aniga magacaygu Cabdiraxmaan Axmed Nuur lacagaha inaan aruuriyo waxa igu dhaliyay maalmaha kamida ayaan lacag meel ka qaaday lacagta markaan meesha ka qaado waan garan waayay Allah u naxariisto hooyaday markaas noolada u tagaan lacagtan hooy magaceed marka way igu tiri inta xoogaa si ii dacaayadaysay kaftana bay igu tiri lacagtii lacag qiimo noogu dambeysay lacagtan kumiya la yiraahdo waa shan Soomaali subaxaas waxaan ka fikiray adiga oo dawladii joo jirta inta dhashay waliba iyadoo ciidankii booliiskii iyo nabad sugidii iyo militariga shaqeynayaan xasuustaada ku jiraan say oo kaayeen gaadiidkii wateen iyo meelaha deganayeen qaar kamida haddii lacagta Soomaaliyeed aqoowada jiilka dambe ee adiga kaasii dambeeya ka kasii dambeeya kan dhalan doona mustaqbalka adduunku soo noqon doona yaas u maqan maadaama aan dawladda jirin subaxaas waxaan go'aansaday inaan ka bilaabo kumigii hooy u dacaydeysay u canaanata kaas buu ahaa kaasaan ka bilaabay alxamdulillah ilaahay wuxuu ugu guuleeyay markii la sharaxay hooy sharaxday ka bacdi aniga u dhalata lacagta inaan aruuriyo marka wuxuu inta bilaabay xoogaa shilimaadaan isla helay ayaa dadkii waxay bilaabeen igu dhiirigeliyaan oo qaarkood yiraahdaan anna waxbaan hayaa ku dar oo qaarkood yiraahdaan intaan haysaam iga gadan ka iibsho markii wixii bateen oo sidaan oo kale hadda abadnantiga u noqdeen wax tiro badan u noqdeenna qof kasta waa ugu hambalyeynaya qof kasta waa ugu taageeraya qaarkood waxay leeyihiin anna qayb isii marka way badan tahay dhiirigelintu hadda aad u xoog leedahay waagi bari wax la yaab la kulmaa waxaan ogeyn oo inay jiraan ba aanan ogeyn waxa aan raadinayay marar badan waxay ahaayeen waxaan aqoon raadinayay saale hadda albumkan oo kale lacaga ka buuxa noqolada noocaana inay jireen horan uma aanan arag la igamana sheekayn anama aanan ogeyn marka anigoon ogeynan raadinayay famisa oo lacagta aan raadinay misaanay u akayd ruux ma intaanay ahaayeen saddex arimood igu adag kow shayga helitaankiisu adag markaad hesho lacag baa kaaga baxaysa lacagtuna waa adagta dad Soomaali iska maqada dhirgaan nahay marka labada caqabado taagan oo jira caqabada saddexaad waxay tahay inta lacagti calashaan anu guri lamaay nin Kristaan ahay hadba xaafadan degan uga guuraa inta aan anu alaabteeda raranayo in ka badan ayaan daldalaa lacagta kale iyo alaabta taariikhda hore kaydka marka caqabada ugu daran lacagtaas waa lacagtii boqortooyada u juuraan ugu xiliga dheeraad waxa la sheegay qarnigii 7aad ee miilaadiga inay soo aasaasantay qarnigii 17aadna ay burburtay marka lacagtaas lacagta ugu cimriga dheer waaye waxa ku dhex jira boqortooyin kale oo waxa jiray boqortooyo ayadana xilli kooban ka talinaysay maxaan ku raahdaa koonfurtan Soomaaliya qaybo kamid ah si boqortooyada galidii oo kale way ku dhex jirtay waxa la yiraahdaa noocan xoogaa ka waaweyn moogtay adduunyadu dib ay birta u soo casriyeynayay midda yar yartaana waxa iska la boqortooyada u juuraan middan xoogaa yar waaweyn waxa iska la boqortooyada galidii marka aan barbaaray sidaasan taariikhiyan ku ogaaday waxa jira boqortooyooyin kale oo ayaguna ka jiray gudaha Soomaaliya boqortooyinka markii la isku daro Soomaalida wuxuudiyoon kala soocnayn wayna badiyeen oo haaf jawaan amal waa halkaan ku jiraan waxa jira markii qarnigii 7aad markii la soo gaaray lacag caalamiyeed adduunkana ka wada socoto leeyahay Maria Teresa ayaa Soomaaliya ka socotay Maria Teresa hadda inta ma taalo Soomaaliya aan qaadin waan hilmaamay xaafadii taalaaydo badan lacagtaas qalina way lahayd dahabna way lahayd markii dambe iyadoo feegaha la sameeyay oo iyadoo birha jirta laakiin qalinka u eg lacagtaasuna lacag caam ah waxay ahayd isticmaalayay xilliga isticmaalka Talyaaniga iyo Ingiriiska ka hor iyo Faransiiska oo Soomaaliya shan Soomaaliyeed ay midaysnaayeen marka inta aan ka helay kana xasuusto taariikhiyan lacagaha isticmaal noocaas ay ahaayeen ma jirin lacag warqada caalamkana ciriiri bay ku ahayd in la isticmaalo lacag warqada waxa la sheegaa hadda markii xilligan la joogo 700 sano amal ay ku eg tahay lacagta warqada in la isticmaalo marka lacagahanina waxay ka badan yihiin 1000 sano ka badan yihiin dhammaan caalamku wuxuu isticmaalayay waxyaabo yar yar oo noocaan oo kala ah oo ku sano Istanbul lagu dhuftay marka lacagtii la isticmaalka ka hor nuxurkeedu waa kana wadanka waxa soo maray lacag la yiraahdo Soomaali Italian Pesa waxa u horreeyay 1901 waay 1901 Talyaanigu wadanku wuxuu ku qabsaday 1893 iyo wadanka si toos u qabsaday intuu xeebaha joogay iska dhaafiyo meelaha ku gaaf wareegay 1893 haduu qabsaday 1901 lacagtaan soo saaray Soomaali Italian Pesa la yiraahdo one pesa mesa pesa xilli waxa jira boqortooyinka soo baxa wadanka ay cumaanaysan sicid barqash oo kale lacagii xilligaas jiray waa kuwaana lacag islaamka ahaa oo dawladda islaamka liga jirta way Uthmaaniyiinta lacagtooda wadanka way ka socotay idoo qalinaan haya lacag rasmi ah oo dawladda Soomaaliyeed leedahay oo dawladda Soomaaliyeed soo saarto xor ah waxa ugu horeeyay 62 lacagtii anu waxaan u aqaan lacagtii waa laydo lacagtan kontonka kuna shilin halka nuqul oo konton kuna shilin leh
oo leh hal nuqul oo 20 kun oo shilin ah oo leh hal nuqul oo 2 kun oo shilin ah lacagtan waxaa la sameeyay 2011 xilligii maxay saad bar lacag la sameeyay dhexda waxa uga jiray madaxii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan duubkii oo daraawiishtii lagu ikraamayay marka tan oo kale hadda waxa yaala waxa ku sawiran maxaan ku raahdaa tiyaatarka qaranka tan oo kale masjidka Isbaahaysiga ku sawiran kuwan kale waxa ku sawiran maxaan ku raahdaa dhul iska qurux badan oo Soomaaliyeed iyo beero iyo waxsaasa ku sawiran waxa marka taariikhdeena inaan aruurino raadadkanagi aan baabi'ino waa shayga ummadnimadeena iyo dad jira inaan ahayn qeexi karo ma garanaysaa maanta haddii lagu yiraahdo maxaa cadaynaya inaan qarnigii 15aad uma jirtaa ahaydeen ee aadan keenin wax qarnigii 15aad jiray ama qoraal ha noqoto ama sawir ha noqoto ama agab la isticmaalay ha noqoto ma garanaysaa horta haddaadan keenin wax ku marqaad fura ma jira qarnigii 15aad inaad jirto bal iska dhaafada waxaan helaynaa qarnigii 7aad lacag la isticmaalay Soomaaliya helaynaa ma fahmaysaa miilaadiga waxa la helaa taariikho qeexaya ciise ka hor 500 sano 700 sano ka hor ummad ma jirto inay ahayd jiilka marka muxuu ka faa'iideeyaa jiilku wuxuu ka faa'iideeyaa inay raadkoodii hore helaan waxay caalam kula tartamaan inay helaan waxay sheegtaan inay helaan siirad iyo abtir iyo isr iyo farc iyo meelay ka yimaadeen iyo ummad macna leh inay ahaa jireen oo shafka ku ruuxa karaan inay helaan ka macaashaya